runtii hadda marka horeeto sanad wanaagsan ummadda Soomaaliyeed meel kasoo joogtana waxaan rajeynayaa runtii sanadkan sanad khayr qaba in Ilaahay nagu dhigo inagu dhan runtii waxaan rabaa arrintaas inaan ka hadlo waa runtii ayaan daro maalin waxaa la sheegay inuu ra'iisul wasaaraha geeyey baarlamaanka xaanshid la leeyahay ra'iisul wasaarahooda ayaa dalbay Saraasen waxaan rabaa inaan xildhibaanada baarlamaanka iyo ummadda Soomaaliyeed u cadeeyo inay tahay been abuur runtii laba been abuur saxiixiga iyo waraaqdaba aanan wax waraaq oo dalab waxaa yeelaatay aanan ugu wareegsanaysan aan ku dalbanayo maaragtay in shirkadaas ay wax la qabato amniga dadkeena iyo dalkeena waxaan yacni yaab ah wasaaruhu waa malayn kara inuu yahay nin cusub oo runtii aanan la socon wax badan laakiin in madaxweynaha uu runtii hadalkaas ka jeediyo uu yiraahdo waraysi ku bixiyo uu yiraahdo wasaarihooda dayaxooda waxaan qabaa inay tahay runtii arrin ayaan daqa ah waana been abuur aan waxba ka jirin shirkadaas wax dalab oo aan runtii aan ka dalbaday inaysan jirin waxaad ka garan kartaana waqtiga lagu qoray in aniga aan dalabka sameeyey waa 15 May sidii soo gaartay taasna waxaad ku cadeynaysaa waa 2 maalmood ka hor inta madaxweynaha uusan kala dirin dowladda waagi horeeto iyagoo og wixii maalintaas ka dambeeyay xiriirkeena inuu wanaagsanay mideeda kale waxa yaab leh haddii anigu dalab aan qoray bay 15keedii waxa shirkadan wadanka keena markii aniga aan shaqada ka fadhiistay oo aan ka baxay kadib inay soo galaan wadanka waxa ay tahay wax aan maaragtay qof kasta qiyaasi karo arrintaana waxay runtii arrin lagu been abuuray xaqiiqada Umar Cabdirashiid waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama aad tiri ra'iisul wasaaraha ayaa hordhigay baarlamaanka warqad ka hadlaysa in adigu aad ka dambeysay heshiiskaasi shirkadda Saraasen ee dhinaca tababarada iyo la dagaalanka argagixisada adiga shakhsiyan ma la xiriirtay ra'iisul wasaare Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo arrintan ma kala hadashay lama xiriirin kalamana hadlin laakiin waxaan rabaa arrintaas inaan haatan in hawada uga cadeeyo baarlamaanka xildhibaanada ah iyo ummadda Soomaaliyeed in been abuurayta waraaqdaas aniga aan shaqo ku lahayn arrintaas Saraasen runtii waana ayaan daro in la geeyo waxa yaab leh in maalin golaha wasiirada ayay uga hadleen uga doodeen arrintan markii hore waxaa lagu maqaalaa in isku afgaran waay kadibna la keenay waraaqa madaxweynaha iyo nin kale ay ku qoran yihiin oo aan saxiixinayn lagana dooday shirkadan loogu ogolaado wadanka inay soo gasho ayadoo aan contract loo saxiixin waxa loo qarinayo contractiga wali lama garan waraaqda ay keeneen waa waraaqda leeyahay waxaa dalbaday ra'iisul laakiin waxaa la rabaa contractii nimanka kadib yaa u saxiixay yaana soo gashay nimankan wadanka laakiin maadaama adigu aad ka mid ahayd mas-uuliyiintii hore gaar ahaan ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya arrinta ku saabsan heshiiska wax ma kala socotay maaragtay ama maxay ku saabsan yihiin waxyaabahan inta badan aad ka hadlaysa ee ku saabsan in heshiiskaas aad ku lug lahayn ka sokow sideed u aragtaa heshiis noocan oo kale ah in maaragtay uu dhaco runtii khatarta ay keeni karto waxa weeye amniga maanta annaga waxaa nagala shaqeynaya wadanka Mareykanka wadamada Yurub wadamada Afrikaanka AMISOM ururka Afrikaanka igad يعني إن ما أنت أنت كتلاصنو الدنيا كلته أنك وحي أمري إني عن فرح كسرنا شركات بايبة خطر يعوضهم أي أوكي كتا وضع كرنتي حديث تاس حاتم دورد وهرسيدون وحي كيني كتا ومدح كلته مع الاستجابة كلته ضمني سلاسل سلامة الصغير مركز تاسع وحي أبا أنت كنتي برلمان كإني أنت كفي السلام ديدان إن شركات دان وكلته وضع كمرنا عليها إصدقته yaad adiga ku eedeynaysaa in heshiiska noocan oo kale uu ka dambeeyay mar haddii dhinacaaga aad leedahay adigu aniga wax luga kuma lahayn xukuumadda cusubna ay leedahay annaga waxba kala ma socono runtii arrintan waxaa wax ka ogaa madaxweynaha sida hadda la sheegayana waxaa muuqata in madaxweynuhu lacagtii uu ka soo qaatay imaaraadka ee uu markii xukuumadda la reebayay xukuumaddeeda u isticmaalay in lacagtaas ay ka timid shirkad san oo shirkadan ay wixii lacagta siiyay ahayn dowladda imaaraadka lacagahaas runtii si khaldan loo isticmaalay ayadoo loogu talagalay ciidanka in mushaar lagu siiyo ayaa runtii waxaa loo isticmaalay arrimo siyaasadeed وعدها إن أنت أنا بالحين كله كلية هي لكن الموضوع إن القرنية صوتنا وحيتها يعني وحك الوصي حي أيها وحدة كستيني سنتين وح عادية
maxaa marka adiga kuu muuqda hadda tusaale ahaan arrintan maxay ka bedeli kartaa aragtida laga qabo xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaarihii ku bedelay uu hogaaminayo? runtii waxay u muuqanaysaa inaan annaga ka kalsooni baxnay dalalkii haatan naga caawinayay dhinaca amniga oo aan door bidnay inaan shariikado la isticmaalno waana arrin runtii aada u khaldan khatarna keeni karta hadda dadka soomaaliya caawinada keeni karta inay yidhaahdaan wadanka kan dadka hadda maanta mas-uuliyiinta ka ah dadka ehel u ah ma aha ummadda soomaaliyeed danaheeda marka aan yaan waxba loo qaban inta badan wax ka dhacayaan taasna khatar bay keeni kartaa marka anigu runtii waxaan qabaa in arrintaas baarlamaanku uu diido mideeda kaleetana baarlamaanka waxaan rabaa inaan ruuxiisa ka codsado waxyaabo waxaa jira la khaldi karo ama been laga sheegi karo ama la falsifikarin karo sida saxiixiga oo kaleeto laakiin waxyaabo aan been laga sheegi karin waxaa weye shariikada tan magaca soomaaliyeed lacag noocee ah ayay kusoo qaadatay iyay lacagta siisay yaa bank accountska iyo lacagta soo mareen waxaasoo dhan waxaan runtii ka codsanayaa baarlamaanka in ayagoo kaashanaya xafiiska UN-ka xafiiska African Unionka iyo kan IGAD ay baaraan arrintaas si loo ogaado dhaqaalihii soo maray meelihii uu maray dadkii qaatay kulli baarlamaankan uu arrintan diido dadkii dhaqaalaha ka qaatay markaas ayaga u taalla si ula xisaabtamayaan. Cumar Cabdirashiid xukuumadda cusub ee hadda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ma isleedahay waxyaabo fara badan oo lagu eedeynayo in adigu aad ku fashilantay ayay ku tallaabsanayaan oo horumar ah? runtii anigu waraysi aan hadda ku warbixiyey waan ku eri in lala shaqeeyo xukuumadda cusub si arrimaha hadda taagan waqti badan uma harin inta yaroo hartay in yacni at least wixii wax lagu sixi lahaa dastuurkay ahaayeen in dadka iyo runtii mas-uuliyadda saaran dowladda mas-uuliyad ka weyn ayaa shacabka saaran ganacsatada saaran aqoon-yahanka saaran in iyagoo markaas runtii danaynaya dalkan in maanta dadkan uu ka baxo in lala shaqeeyo xukuumadda dastuurkan runtii sidii loo horgelin lahaa waxyaabaha loo baahan yahay in la saxana lagu sixi lahaa dastuurka gudihiisa. maxaa kaloo tusaale ahaan is leedahay inta badan maadaama aad hadda la socoto in waxyaabo fara badan oo isbedelada dalka ay ka dhacayaan oo xukuumad cusub ay jirto ururadii idinla dagaalamayeyna ay hadda heshiiyeen gaar ahaan ururka al-shabaab iyo xisbul islaam maxaa kuu muuqda adiga hadda? runtii waxaa ii muuqdaa in mar kasta aan laga fursan doonin in xal siyaasadeed la helo arrinta military keliya iyo security keliya wax ma sixi karaan waa inay jirtaa siyaasad hogaaminaysa arrimaha amniga iyo securityga wadanka la rabo in amnigiisa lagu soo rogo yani dadka kan runtii waxaan rabaa weli ummadda ma wada xuma ummadda hadda xukuumadda kasoo horjeeda ummad wada xun ma aha ummadda dad badan waxaa ku jira runtii siyaasad ahaan yani diidan shaksiyaad maanta xukuumadda ku jira ee aana diidanayn mabaadida guud ee dowladnimo runtii ummadahaas oo dhan in wadahadal lala furo in lagu dadaalo sidii dadkaasi loo soo dumi lahaa dadka inta xag jirka oo maanta ka fakeraysa wadankan in dad iyo dad shisheeye ay gacanta ugeliyaan intaas la iska qabto inta kalena runtii loo furo maaragtay xal siyaasadeed oo lagu soo jiidi karo shaksiyaadka in waxaan siyaasaddan laga saaro shaksiyaad arrimo shaksiyeed